waxaa kale oo jirta oo muhiim ah in mustaqbalka dhow laga yaabee qofka inuu xorriyadiisa ku waayo tallaal la'aanta tusaale ahaan waxaa soo socda in la sameeyo oo aad hadda looga hadlayaa siiba wadamada European Union oo Norway ka mid tahay oo debate badan ka taagan yahay in la soo saaro waxa loo yaqaan vaccine pass ama passaportkii talaalka oo ay noqoto wadamada qaarkood iyo aeroborada qaarkood in laga diido qof aan talaaleen kusoo dhawaada mar kale waa info 123 iyo hay-adda warbaahinta Nursom oo maanta program kale oo ku saabsan coronavirus iyo sidoo kale talaalka maanta waxaa marti noo ah Dr. Cabdirashiid Cali Warsame oo ah genetic scientist ama cilmi baaris sare oo ku takhasusay cilmiga hidde-sidaha doctorku wuxuu ka shaqeeyaa Radium Hospital maanta waxaan ka wareysan doonaa doctorka waxyaabo badan oo ku saabsan cudurkan coronavirus iyo sidoo kale talaalka oo si habsami leh uga socda wadanka Norway iyo guud ahaan caalamka doctor soo dhawow doctor su'aasha aan ku weydiinaya waxa waaye talaalka la isticmaalo dunida gaar ahaan wadanka Norway talaalka haddaan isticmaalno waa 3 walow la joojiyay mid labada hadda la isticmaalo waa Pfizer iyo Moderna waa maxay farqiyada u dhaxeeya talaalada bismillaahir rahmaanir rahiim oo aad baad u mahadsan tahay Farxaan Xalane bahda info 123 iyo Nuur Sameedi waad mahadsantihiin runtii waa su'aal muhiim ah markay noqoto talaalada aan isticmaalo ee xanuunka laga isticmaalo waxa weeyaan oo Norway laga isticmaalo siiba runtii talaalo badan ba adduunka laga soo saaray ilaa markii hore 200 oo nooc baa lagu bilaabay ama phases ka horeysay 30 iyo dhowr kamid ah baa waxay galeen in ay garaan in lagu tijaabiyo maxaa la yiraahdaa clinical trials ama bini'aadamka lagu tijaabiyo hadda marka ugu dambaysa ilaa 14 ayaa la ansixiyay in dadka loo isticmaali karo xanuunkan laga daaweyn karo kuwa Norway laga isticmaalana kuwaas bay kamid yihiin sidaas sheegtay laba kamid ah hadda la isticmaalaa oo ah Pfizer oo ay develop gareysay ama ay samaysay shirkadda BioNTech iyo Pfizer iyo Moderna oo Mareykanku sameeyay waxaa suuqa laga joojiyay AstraZeneca iyo Johnson oo soo socday oo laftiisa hakad la geliyay guud ahaan waxay isaga mid yihiin in loogu talagalay in ay sameeyaan waxa loo yaqaano antibodieska oo difaaca jirka ka difaaci karaya hadhowta viruska waxay ku kala duwan yihiin habka loo sameeyo ilaa 3 nooc oo kala duwan ayaa talaalkaas loo sameeyaa waxaa laga sameeyaa ama lagu base gareeyaa nooc kamid ah hidde-sidayaasha ama DNA-da nooc kale waxaa lagu base gareeyaa RNA-da nooca saddexaadna waxaa lagu base gareeyaa ama laga sameeyaa proteinka qaabka loo sameeyo dabcan way kala duwan tahay waxaa arinta xiisaha leh waxay tahay labada hadda aan inta ka isticmaalno oo Pfizerka iyo Moderna waxay ka samaysan yihiin RNA-da ayaa laga sameeyay dhibaatada ama culayska ay leeyihiin waxa weeyaan dhinaca logistiga waayo waxay u baahan yihiin qaboojin tiro badan ilaa 70 degrees Celsius in lagu qaboojiyo oo markaa dunida saddexaad iyo dunida aan horumarsanayn oo koronto badan haysanin lagama isticmaali karayo sida kale technically marka waa isku mid siiba labadan aad bay isugu dhow yihiin waan RNA maxaa la yaabay ku base garaysan yihiin AstraZeneca iyo kuwa badan oo kale waxay ku base garaysan yihiin DNA ama hidde-sidaha DNA-da la yiraahdo baa laga sameeyay iyaka waxay ku fiican yihiin in hadba meel loo raro iyadoo qaboojiye kale la isticmaalayo ayaa macquul ah marka saas bay ku kala duwan yihiin inta badan doctor waxaan ognahay virusku inuu iska bedelo oo ama oo hadba nooc oo noqdo tusaale ahaan viruskii Ingiriiska iyo kii Brazil iyo kii hore oo bilowgii 2019 dunida ku bilowday maxaa u sababa virus inuu kala isbedelo maxaana farqiga oo u dhaxeeya virusyada sidaan ognahay hal nooc ayuu ku bilowday viruska keena mataqaanaa xanuunka mataqaanaa coronavirus nitanka hal nooc ayuu ku bilowday
inta badan nooca uu ka bilowdo waxaa la yidhaahdaa wild type ama noocii duur joogta ahaa waana kan la aaminsan yahay inuu ka imaaday toos uga imaaday fiidmeerta kadibna bini'aadanka usoo gudbay inta uu marka xanuunkani bini'aadanka ku dhex jiray maadaama wuxuu ka samaysan yahay waxaa ku jira gudihiisa maadada RNA-da RNA-du waa very unstable inta badan waa katiinad isku taxan oo kale marka katiinada meel yar haddii laga bedelo waxaa dhacaysa in borotiinka samaysmaya uu isbedelo markaasna uu isbedelo dabeecadda viruskaas tusaale ahaan sida uu u fidayo ayay ku kala duwan yihiin oo fiditaankiisu uu badan yahay tusaale ahaan kan British variantiga la yiraahdo ama Ingiriiska ka imaada waa nooc cusub oo kii wild type ka duwan ama kii duurjoogta ka duwan wuxuuna kaga duwan yahay in uu si dhaqso ah u fidayo waxaa dhici karta in mararka qaarkood nasiib wanaag aan wali dhicinin in kuwa kale ay soo baxaan kuwaas oo laga yaabo in ay dhaawaca ay jirka u geysanayaan iyo sida ay jirka ugu dhexfadayaan inuu ka duwan yahay marka guud ahaan RNA-da viruska ayaa meel yar oo ka mid ah ama one single nucleotide wax la yiraahdo ama qurub ka mid ah ayaa isbedelaya dan waxaa imaanaya virus kii hore u dhow laakiin dabeecad ahaan ka duwan tusaale ahaan mid ka dhaqso badan inuu fiditaankiisa ama ka xanuun badan inta la og yahay kan Brazil wax badan laga maqlinin laakiin waxaa la og yahay for example kan Ingiriiska ka imaaday in fiditaankiisu 70% uu ka badan yahay noocii hore ee awal uu ka imaaday shimbirta fiidmeerta ka imaaday ee bini'aadanka ku fiday waxa macquul ah noocyaal kale imaadaan waana walwalka ugu badan oo scientists-yaashu ka qabaan isbedbedelka ama mutationka waxa la yiraahdo afka sayniska oo uu samaynayo virusku markaasna wuxuu noqonayaa mid markasta la jaan qaadi karaya environmentiga uu ku nool yahay isla bedelaya difaaciisa adkaysa si dhaqso u fidi karaya tan walwalka ugu badan inuu soo baxo nooc ka mid ah noocyaasha u adkaysanaya talaalka ka adkaysanaya ama talaalku una qabanaynin taas ayaa laga baqayaa hadda doctore waxaad tahay genetic scientist waxaad ku takhasustay cilmiga hidasidaha dhiirigelin noocee ayaa sii lahayd dadka Soomaaliyeed walow dadka Soomaaliya hadda ay bilaabeen ama qaadashada talaalka haddana waxaa jiro in yar oo dadka kamida oo walaac wali ka muujinaya oo kalsooni badan aan ku qabin talaalka marka dhiirigelin noocee ayaa sii lahayd mahadsanid farxaan runtii intii adduunka uu talaalku bilowdayba markasta way jireen dad talaalka ka soo horjeeda ilaa dhowr boqol sano ka hor talaalka la bilaabay ama wataqaana qarniyada ugu dambeysay intii bini'aadamka istalaalayay hadda bulshada modern society bulshada cusubna way ku jiraan tusaale ahaan Norway waxaa la xisaabiyey ama la qiyaasayaa 95% dadku inay ogol yihiin talaalka approval la siiyeen marka laakiin waxaa jira dadka qaarkood ama oo xataa mararka qaarkood degmooyinka qaarkood tusaale ahaan degmada Neesden oo u jirta Oslo wax yar u jirta dhowr kilomitir u jirta approval rate-ka in dadku talaalka qaataan waa 85% ayay ka yartahay guud ahaan Norway markay noqoto community-yaasha ay ka mid tahay Soomaalida oo Norway degan dadku isku soo arkaan oo waxa laga yaabaa approval rate-ku kala duwan yahay laakiin waxaa muhiim ah in talaalku uu yahay qofkana u fiican yahay community-gana u fiican yahay uuna yahay waxa kaliya qaabka kaliya ee mustaqbalka xanuunkan looga hortagi karo runtii arinta ugu muhiimsan waxa weeyaan in qofka isagu uuna iska fekerin qofka dhalinyarada maanta oo isagu iska fekeraya in ama immuunkiisu fiican yahay difaaca jirkiisu fiican yahay oo laga yaabo inaan wax badan ka qaadayn hargab ahaan u haysta waxaa dhici karta in xanuun number 1 guarantee ma haysto in uu markasta caafimaadkiisa 100% noqonayo sidaas darteed maanta markuu opportunity haysto inuu iska talaal ka qaato iskana difaaco way fiican tahay tan labaad haduuba caafimaad yahay xataa oo isagu caafimaadkiisa uu tiisa ka fikiro waxaa macquul inuu xanuun ka qaado kadibna adeerkiis habaryartiis qaraabadii iyo dadkii kale ee xanuunka u nuglaa uu gaarsiiyo sidaas darteed
in tallaalka dadka la wada qaataan weliba communitygeenna waa muhiim. weli waxaan haysanaa dad badan oo u nugul xanuunka. waxaan tegi karnaa meelo badan oo wadamo kale oo bulshadeena joogto. marka sida ugu fiican ee xanuunka lagu xakameyn karo waa ka hortagga, tallaalkuna waa furaha ka hortag. waxaa kale oo jirta oo muhiim ah in mustaqbalka dhow laga yaabee qofka inuu xorriyadiisa ku waayo tallaal la'aanta. tusaale ahaan waxaa soo socda in la sameeyo oo aad hadda looga hadlayaa siiba wadamada European Unionka oo Norway ay ka mid tahay oo debate badan ka taagan yahay in la soo saaro waxa loo yaqaano vaccine pass ama baasaboorkii tallaalka, oo ay noqoto wadamada qaarkood iyo aeroboorada qaarkood in laga diido qof aan tallaaleen. waxaa dhici karaysa xataa qofka haddii taas ayna dhicin, waayo dood badan baa ka jirta in xorriyadda dadka laga qaado oo qof kasta lagu qasbo inuu tallaal qaato si uu vaccine pass u helo. laakiin waxaa dhici karta xataa haddaan xorriyadda lagaa qaadin, marka aad ka degtid aeroboorada ama wadamada kale xuduudaha galaysid, in markasta lagu xojeeyo in aad iska qaadid test, for example serological test ama dhiigga la iska qaadayo in jirkaagu uu difaaci leeyahay oo leeyahay difaaci samaynayo. taasna waqti badan iyo dhaqaale badan ayay kaa cunaysaa. marka xorriyadda dhaqdhaqaaqa ayaa ku xiran waxa loo yaqaano la rajeynayo inuu soo baxo vaccine passka, taasoo ku xiran qofku inuu istallaalo. doctore, cudurkan COVID-19 ama coronavirus waa maxay raadka uu dunidu ku reebayo iyo waxa laga baran karo? run ahaantii xanuunkan intii uu bilowday waxa uu saameeyey geesaha dunida, guri kasta iyo goob kasta. ilaa 3 milyan oo dadaba inta la ogyahay hadda u dhimatay in ka badan 145 milyan dad ku dhowba ku dhacay oo dhaawacyaal kala duwan u geystay. saameyntiisa dambe lama ogaan karo in xanuunkii dadka ku dhacay inuu wax la yiraahdo late effect ama inuu waqti dambe dhibaato dhaawac jirka u keeni karayo lama oga. dhaqaale ahaan iyo arrimaha ijtimaaciga wax badan buu ka bedelay adduunka, oo dhaqaale ahaan runtii waxa weeyaan wax badan buu ka bedelay. laakiin tan caafimaadkaba ugu muhiimsan oo intaasoo dada ay ku maqan yihiin. laakiin laba wax baa laga baran karaa baan qaba oo muhiim ah. mid waxa weeyaan bini aadanka caqligiisa iyo tabartiisa iyo sida uu diyaar ugu yahay inuu ka hortago masiibooyinka ay ka mid yihiin bandemigan ama xanuunkan oo kale oo dhacaya, in aanay diyaar u ahayn ayuu tusay. hadday noqon lahayd wadamada, hadday noqon lahayd adduunka oo dhan. taas waxa weeyaan meel ayuu saarayo culayska tabardarrida bini aadanka iyo caqligiisa meel ayuu gaarsiiyey. waxaase kasii muhiimsan runtii mataqaanaa dhinaca kale wuxuuna tusay waxa aan dhihi karno human resilience ama dhabar adayga bini aadanka. waqti kooban oo 1 sano ah ayaa bini aadanku caqli iyo juhdi badan isu geeyey, waxaana lagu soo saaray tallaal looga hortagi karo xanuunkana joojinaya oo 95% ugu yaraan mataqaanaa intooda badan ay qofkii qaata ka difaacaya. taas macnaheedu waxa weeyaan in isu tagga iyo sida loo wada shaqeeyay inkasta oo ay jirtay kala shaqayn jirtay oo wadamada ay xuduudaha la kala xirtay oo bulshada kala qoqomantay, haddana wada shaqayn guud oo ama taqaanaa saynistiyaasha caalamka in xanuunkan sidii looga hortagi lahaa in waqti kooban lagu soo afjaro ayay keentay. taariikhda ma dhicinin in 1 sano gudahood inta vaccine from A to Z la bilaabo, la dhameeyo, la meel mariyo mataqaana ma dhicinin. normally waxay qaadataa in vaccine la sameeyo 10 ilaa 10 sano 10 sano ilaa 15 sano bay qaadataa, laakiin kan way ka yartahay. waxaa kale oo muhiim ah in la xuso wuxuu adduunka ku baraarujiyay technology cusub oo maanta kadib wax badan ka qaban karaysa xanuunadan oo kale hadday imaadaan. waxaa ka mid ah in markii ugu horeysay taariikhda ee la yiraahdo RNA based vaccine la isticmaalo oo kan hadda inagu aan qaadanayno. waxyaabaha laga bartay xanuunkan oo mataqaanaa raadka wanaagsan uu nooga tagi karo ayay ka mid tahay. laakiin
inkastoo tragedy iyo dhibaato badan dadka ku dhacday haddana waxaan qabaa in bini aadamku mar dhow kasoo kaban doono mar dhowna mataqaanaa ay tana noo diyaarin doonta sidaan uga hortegi lahayn xanuunada dambe oo soo socda oo imaan karaya wayna imaan doonaa